Isgoyskan waxa uu kala qaybiyaa degmooyinka Dharkiilney iyo Wadajir ee gobolka Banaadir. Dhaqarqabo ka tirsan nabadiidka Al-Shabaab ayaa abaara maqribadii ku toogtay halkan. Allaha u naxariistay nin dhakhtar ahaa oo lagu magacaabi jiray Dr. Cali Cabdulqaadir Muudey. Marxuumka oo si weyn looga yaqaanay labadan degmo ayaa xilliga uu ku baxayay gacanta cadowga Soomaaliyeed ku sii jeeday masaajid nawaaxigan lagu dilay ku yaala si uu iskaga soo bixiyo salaadii maqrib. ciidamada ammaanka oo iyagu xilligaas roonda sameynayay iyo dhagarqabaha ayaa nasiib wanaag si kadis ah ku kulmay xilliga uu dilay marxuumka, wuxuuna isku dayay in uu ciidamada labadiisa cagood uga baxsado. ninka Al-Shabaabka ayaa waxaa la sheegay in uu nin ganacsada soo dilay isla markaana askari roonda ku jiray ay isheleen ay israsaaseeyeen ciidamo badan ay ku soo baxeen. waxa uuna orodkii uu soo cararay uu soo galay gurigan oo dabcan ku yaala degmada Dharkiilney. qolkan waxaa la sheegay marka uu galayay in ay ku jireen ciyaal yaryar oo guriga deganaa. nasiib wanaagna askartu ay ka daba timid, caruurtiina ay ka baxeen. in muddo ayuu ku dagaalmay gurigan oo hadda dhiigga aad u jeedaan. ciidamaduna ay ku guuleysteen in ay dilaan dadkii xaafadan deganaa iyo dadkii nawaaxiga u dhawaaba. waxay galeen xaalad argagax iyo cabsi ah maadaama in muddo ah ay socotay xabadda uu ninkaasi ridayay iyo midda ciidamadu ay ku soo ridayeen. Taliyaha qaybta galbeed ee booliiska gobolka Banaadir, gaashaanle dhexe Yaasiin Ganey, ayaa faahfaahin ka bixiyay dhacdadan iyo howlgallo ay ciidamadu sameeyeen oo ka dambeeyay. waxaa dhacday in ay maqribkii ay soo weerareen cadowgu nin masaakiina ee ku ganacsanayay goobtiisa ganacsiga in ay dilaan kabacdina ciidanka mujaahidiinta ah ee ka shaqeeya saldhigga Dharkiilney iyo Wadajir ee qaybta galbeed ayaa gurmad isku urursaday si ay u soo qabtaan cadowgii dilay dadkaas qofkaas masaakiinka ee ku ganacsanayay goobtiisa ganacsiga. way ka daba tageen, waxayna ugu tageen guri uu carar uu ku galay dhexdiisa ayuuna ka dagaalamay waana lagu dilay. Taliyaha ayaa sheegay inay ciidamadu heegan buuxa ugu jiraan sidii ay uga hortagi lahaayeen dilalka noocan oo kala ah iyo weerarada kale ee ay Al-Shabaabku ka geystaan magaalada Muqdisho. guri dad shacaba ay degan yihiin buu galay. kolley waan aragnay rasaasta ku taala iyo marka isaga ma ahane ma dhibaato kala jirta iyo dadka soo gaartay. maya ciidamadu aad ayay u didaaleen, waxayna sameeyeen inay badbaadiyaan caruurtii uu guriyaha ku haystay. caruurtiina waa la badbaadiyay, asagana sidii ayaa lagu gaarsiiyay wixii uu sababsaday inuu dilay dadkii shacabka ah. asagana dhibaatadii uu gaarsiiyay dadka waa laga caaray. muddo dheer magaalada Muqdisho waxaa laga raystay dilalkii madax jabinta ahaa ee ay nabadiidku u geysan jireen shacab aan waxba galabsan. haddase iyagoo ka faa'iideysanaya culeysyada jira sida doorashooyinka ayay isku dayayaan inay dhibaateeyaan dadka. hase ahaatee ciidamada ammaanka oo habeen iyo maalinba howlgallo ka wada magaalada Muqdisho ayaa ku howlan iyaguna sidii ay uga hortagi lahaayeen dhagarta kooxdaasi. Maxamuud Soo Faysane, warbaahinta qaranka, Muqdisho.